saldhigii nabaddaay Jabuuti sanaawiin naga guddoon Jabuutaay sanaawiin naga guddoon saldhigii nabaddaay Jabuuti sanaawiin naga guddoon Jabuutaay sanaawiin naga guddoon surinada gan تستاهلين ده كل خبص تستاهلين ده كل خبص Hey,
waxa weeyaan hunade ina ma daragtay maanta dumarkii xalkan baan ku wala dhannahay hooyooyinkii oo dhan midnimo dhan marka waxaan doonayaa inaan maxay haydeen adiguna caawa si sharaf laad nooga qayb qaadanaysaa marka inaad adiguna wixii boogaadina iyo wixii aad naga sugaysid ba aad ka hadashid waana ka de waan ku furay hadalka hayun روتيني وزاردنا أبيات بنك نطاسة وايو دب مساكين ده يالي استبقى مساكين ولكن دب بعنا أنتو كايات سودا سيسين ده هذا نابريكان كان وكنا صابرين تاسينا ده وحياة وحنا ملايا جاستي يعني بحقبة شهور إيه وحن كفلا إنه أوركم أنت إن أبد فروض هبلي كلا جبتي نورين لجي إن هايسنا أورو haweeno amba dumarkeeni hablaheeni walaalaheen oo maanta u soo jeedeen wadankeeda wax ka qabtaan wadankooda wax ka qabtaan wadankii hooyo marka taasina aad iyo aad bay fiican tahay anaguna haddaan wasaaradda istaagaasida qaran diyaar baanu nahay inaan caawinaad amba wixii ururku noola baahnaa inaan la qabano la garab joogno gargaar iyo diyaar baanu nahay intaana waxaana ku faraxsanahay nidaamkan iyo sida qurux badan ee isku habayseen isku qorshayseen ururku maanta u dhisan yahay iyo fikradan aad ka haysatiin wixii waxqabadka wadankii hooyay ninka doonay inaad had iyo jeer jirab taagtiin wadanka hooyo dadka baahan marka taasina anaku waan ku faraxsanahay wasaaraduna diyaar bay u tahay inay wax laga qabato وحرين نغيرته أجبرتي كدونسين يوحى عوشة دونسين أنا ونلي فضيليان ديار ضمنين كانوا كأدي كان نقول فرحنا مع الشقة ولا شقين كنا فيروزي هبلع كمان دو هبلع ديناميكا والله وصل جيدا هذا يجار تلفون بنوصل حريريا بيني نوصل حريريا خلصنا دور في أنت واي كونتاكتي دي وحلا دفيا ولا شقين تي وحريرتي markaan ku diyaar baan nahay wixii aan noola baahantiin Djibouti diyaar baan nahay inaan wax la qabano oo hawlo wada shaqeynayna inaan bashir fiican inaan yeelano doonana insha Allah waad mahadsantahay marka waxaan kaga bixi lahaa fiirinta anoo le waxaa la moodaynayaan dadkeenu markay qurbashooyin waxaa la yidhahaa bilow wadanka way ka sii jeedaan laakiin sanaka faraxad weyn bay noo tahay markaan aragnay inay weliba dee siiba haween marka la yidhaaho inay markaan aragnay ururkan inuu yahay urur ay ku wada jiraan haweeney badan oo LGBT oo wadanka usoo jeeda inay wax ka qabtaan taasina waa farxad kale aan waxaan oran lahaa sii xoojiya fikradan ururkan midnimo lagu dhisay sii xoojiya wixii insha Allah la qaban karana kuwan la qabanana hawshana iminkan waxaan u malay oo shaqaynteena iminkan bilaabanaa waxaad ogaatiin inay dadka rasiintii amba dadka wadankii hooyo jooga fiican bay ka haystaan ururka anaguna waxaan isku daynaa inaan had iyo jeer xiriir la yeelano ururayaasheena qurbajoogta waayo waxaan doonanaa isku xirno dadkii wadanka joogay iyo dadkii qurbajoogta siday xiriir iyo wixii ay taageero amba isku qabanayaan inay sii xoojiyaan marka nidaamkan iyo waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hambalyana waan iran leenahay anagu insha Allah waad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay السلام عليكم الزهرة ما في عنتها هويو الحمد لله قل بجوج بان ما تو كاد ولا سكول يمدي قبي جودنبا وحلا وحي جوج قل بجوج هولانت إن شاء الله ونسكول إيماننا ونسكول دوبنا هي يهوب ونسلا قرب تاجنا هاي
dalkayaga waan u dadaalaynayaa ciidayada insha allah waa la isku wala imanaya qabiil kastoo nahayba Soomaali haddana Jabuutaan wala nahay waan isgarab joognaa qurba jooga Holland baan nahay waan hooyo oo dhan waa la wala joogaa meesha yar waaweyn ba waa la wala joogaa iyo hoob waan sida garab taaganahay wax kastana waan keenaynaa wax kastana waan imanaynaa wax kastana waan u dadaalaynaa insha Allah ilaahayna nala qabto آمين ها مر لبعض السلام عليكم دمانتين مرويك شرفت على هالك النجوسق لوجي مدي نسوا نشرفي آدي بدون ما هتنتين وحن النجوس دويننا أورك مدنمو أو عن محيا هذي مدو أن هذا بقى عن لؤاد أن نجوجرنا وشيسة عاونا وحويان أن كنا كوجه الرجي ويان isagoo hawlooyin fara badan laba hawlooyin kala soo qabtay sanadkan oo hadda maxay warbixin leeyna siin doono hadda waxaan ugu yeerayaa makarafoonka xasna oo ururka u ah afhayeen iyada inii furi doonta inaguna soo dhaweyn doonta horta assalaamu calaykum marka u horeysa waxa idin la hadlaysaa anigoo xasna xuseena ahna afhayeenka ururkan midnimo ee maanta halkan iskugu yimiday waxaan horta u mahad celinayaa reer Tilburg oo maanta si qurux badan noogu soo dhaweeyay Tilburg ayaa mahadda horta aad u koow iska leh aad baad u mahadsantihiin walaalaha iyaga halkan nagu soo dhaweeyay marka xigta waxaan maanta anigu idin akhrinayaa in yar oo soo dhaweyntii amba maaragtay inaan idigu soo dhaweyno sida quruxda badan iyo waxaan iskugu imanay in yar oo introduction in yar oo soo kooban Bonjour toutes et toutes, bienvenue. Tout d'abord, je passe mes meilleures salutations pour notre association Diaspora Djiboutienne d'Hollande, qui est surnommée Midnimo, c'est-à-dire Unité Djiboutienne. Aussi, mes meilleures salutations, notre président Ismaël Omar Gueye et son Excellence, à la Première Dame et tous les membres de notre gouvernement. Et encore, je viens de nous féliciter d'avoir réuni nombreuses aujourd'hui ici. On s'est rassemblés cette soirée pour instaurer notre statut et choisir une direction, c'est-à-dire les gens qui dirigent l'association, mais aussi de nous partager nos idées. Toute communauté existe, mais aussi résiste grâce à leur solidarité, fraternité et paix. Notre message est de tenir nos mains avec plein d'amour et tout ensemble. Que le bon Dieu protège notre nation et notre gouvernement, mais aussi, nous n'oublions pas nos armées nationaux qui nous sont toujours prêts à nous défendre. Merci et je vous remercie. C'est bien. Moi, je passe à Malika. Salam alaikum. Mar saddexaad mar afraad waxaan u maleeyay inuu kala dhamaanin hadalkii halkan ka tiri xasna haddaan waxoogaa Soomaali ku soo koobo waa mahad celin ururkan midnimo inuu loogu talagalay inay dumarka qurba joogta reer Djibouti ay ku midoobaan urur waxa weeyaan wax qabadkiisu hadda bilow yahay laakiin laga filayo midadhalin fara badan waxay kale maxay ahayd salaan ay u dirtay madaxweynaha iyo xaaskiisa waxa kale halkan ay ka amaaneysay ciidankeena nabad sugidda iyo ciidankeena maxay ahayd armiga iyo difaac ay ku jiraan iyo siday wadanka nabadgelyadiisa u ilaaliyaan hadalkaas wuxuu ahaa hadalkii xasna ee intay ku tiri Faransiiska oo af Soomaali isku dayeen waxoogaa inagu soo koobo hadda waxa weeyaan waxaan jeclaynahay programku wuxuu u dhacay horta san buu dhici doona programku caawa waxay ahayd xasna hadda waynu maqalay soo dhaweynteedii
wasiiradiina waynu la hadalnay labadaas way dhaceen waxa hadda aan rabaa inkeena maxay ahayday kamid ah oo inanta Zeynabu ay ugu horeyso inaan ku soo dhaweeyo makarafoonka iyo halkan waxa magac kale iigu qoran Rooda iigu qoran Roodana waan rabaa inay iyadna soo dhawaato soo qabso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك سيني كرحين فرما أسوسياسيون إنكتينو مقعليه يجي مقع فردينيكي زينو محمد داوود وي أبارك لي تلبروخ ككيا مقالة هولندا كا نقعني دا يوسيني ومره قد قحسا أبارح أكل واني نكي تلبروخكو اللي نميتي دونو جيري مقالك نميتي لكن كه نميتين كادونني أسوسياسيونو إتنا تعمتنا إتنا تو أما تمبلوي وما محي إتنا إتليا بره يا مراي أساكونني أسوسياسيون كو مدنمو مقالة هنا كاد إنكتينو مقالة معناته جوسيان اللي تككي جوسيان إنكي لاني نان هيكلي إنكي توبكوي محيا ساكونا ننو أجابكوي تبرا إتنا اللي إتنا تولي تبنا نبلنا إتنا اللي تبحسنو هنا يكادو نبيسو مرحوه تلو إتنا أبو يي محيا كادو نتون دكتينا تني هنا يكادو نا دبانة كيك هنا يكادون إتنا نبلي إتنا اللي تامتنا أساكادون أكت منا داي هنا يكادو بيسوهنا إن شاء الله كي وعد كادونا بحسنه كلهم بحسنه يلي دينيك إن شاء الله بإذن الله الكريم بس تو إذا سيني كرحين فرماي إنكي هي قد جاي السلام عليكم إنكتينو أني هاي هولندا أني هاي جيبوتي أني هاي جيبوتي شعبين كي هاني هاي إنكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرسي والله تصدقي زينب. هذا الكاس وحوها هذا الكي زينبو آد بأمها تصدقي. إن هذا وحن ربا برنامج كي نصي سعونية وحن ربا هو يأمننا إنه كسر دويو iyadoo halka fadhiyo iska fadhi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا قلبي على وعلكس والسلام يا برسيدان كيغا إسماعيل عمر جيله يوريدي خضر حيد يو ضلك يجي جبوتي ويركون حيجو قدر ما سوا سلام يا قبل نودم بعدين قرب جوجنا هاي وجوجنا وطن كهولندا ولا جوجنا ما أنت هي يهوب مسلم قرب تاجنا هاي ما شاء الله يا أوركا قرب جوج باورنا هاي السلام على إسماعيل عمر جيله ومروة خضراء حيت وبلادي أحيا وطني بلادي أتكلم بجبوتي ونحن الناس اللي هنا قرب جالسين بهولندا كل نحن الجبوتي نحن كل نحن يد واحد ونحن كل ما ساعة نحن جنبكم صغيرا وكبيرا وكبار كل نحن جنبكم ونحن كل شيء نجيب نحن محتاج نحن بدمداتنا هاي نحن وحدة إن شاء الله بلادنا يصلح تمام نسينا العربي يا ناس لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taasina waxay ahayd hooyo aamina oo kamid ah hooyooyinka maxay ahayd qurba joogta reer Holland kamid ahayd midnimo ururka midnimana hadda maxay ahayd ka soo qayb gashay caawa taayay ahayd hadda waxa weeyaan barnaamijkeeni baynu u guda galaynaa waxa kaloo ku xiga barnaamijka waxa kaloo ku xiga Nuuriya Cali Sheekh oo iyadu waxqabadka ururka iyo waxyaabuhu soo qabtay iyo habka uu yahay inaga sii doonta macluumaad fara badan iyo wax sheeg Nuuriya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وحي ضد بدك حبلو واحد بدن بيلادين لكن أنا وين يراه أنا نيجا شاكينا مني ما حكى دكان تاعي وما نالكن كهلا يعني. مركورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركورة وح ما هاد سكالة إله وين واحد كاينو سامحي وين هالكن سكون مادنا. مرك الله بعد وح ما هاد له مروين كشرفت له مروين كشرفت له سيدا ديران نقصو جوابي باقي يجي. ولا ليال هالكن أورك مني ما وحويني وضع تشي iyo inuu inaga wargaliyo ujeedada ururkan loo aasaasay waxaan wada ognahay in aan wax aan midnimo ahayn ummad aan baqaran una waxba ka una hore ugu marin karin waxaan wada ognahay in halgankii guumaysiga aan midnimo kaga guuleysanay waxaan wada ognahay in halgankii guumaysiga aan midnimo kaga guuleysanay oo xorriyadda maanta aan haysano midnimo lagu keenay walaalayaal midnimo waa horumarka waa xorriyadda waa istaageersi iyo danta guud oo meel looga soo wada jeesto taa waxaan ka wadaa afkaarta doonta hayso xisbiga doonta taageersano laakiin qof kastoo reer Jabuutiya waxa uu si xor iyo xalaal inuu ku xuso calankiisa uu dareemo micnaha uu leeyahay calankan walaalayaal dadka reer Jabuuti waxay yihiin xadaarad aad u dheer oo aan kaga soo gudubnay marxalado kala duwan ee guumaysiga mar walba waxay haayeen mid marka midnimo ayaan rabnaa inaan joogtayno si aan dhalinyarta soo kacaysa u dhaxalsiino haddaba haddii aan nahay ururka midnimo waxaan wada tashi la samayn doonaa dhammaan ururada reer Jabuuti oo dhan inta danaynaysa midnimada kadib wada tashiga waxaan ururin doonaa afkaarta dadka bal iyaguna siday u arkaan midnimada halkaa wixii ka soo baxa daraasaad ayaa lagu samayn doonaa si aan u helno dastuur iyo sharcigii uu ku shaqayn lahaa ururkani kadib daraasaadka ayaan ka dhaqaaqi doonaa wuxuu noqon doonaa mid aan kaga tashan doono qaabka aan farsamo ahaan u dhigi doono dhismaha ururka mustaqbalka dhow iyo ka fogba haddaba waxaan rajaynayaa in aad si hagar la'aana aad uga soo qayb ka qaadataan horumarka ururkeena dhammaanteed inagoo ah midnimo waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa hees ay wiilasha walaalaha Sweden ay qaadeen wiilashaasi waxay yidhaahdaan qabiil waa sune kala soocuhu yaanu sacabkaynii tumin saydi nabadda inaynu odhan marka aniguna waxaan leeyahay qabiil waa sune kala soocuhu yaanu sacabkaynii tumin saydi nabadaynu odhan saydi midnimo inaynu dhihin midnimo ha noolaato madaxweynaheena jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaado marwada koowaad ee wadanku ha noolaato ciidamadeena qalabka sida kuwa booliska kuwa jandarmeriga intoo dhan waan soo wada salaamayaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada walaalayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اوكي ان او inanteeni rooda haddana waxaan ku soo dhawaynayaa madasha maxay hayday makarafoonka rooda daahir bandhig soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورد كمدني وإني سلام يا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورد كمدني ما حدين النهاية وحن سلام يا دلكيني وحن سلام يا مدحوينهني وحن سلام يا مروديني سلامتك بعد وحل قعمة وذا تربى حكوا وذا قوستان هذين قعمة يسوى ذا قبسة وحبينهم حقاقيان يا قعمة يسوى ذا قبسنا ولا لا يستعنا النقنو يا إن شاء الله بسم الله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله waxaan hadda waxaan rabi lahaa ma taqaanaa reer Buurmarand iyo reer Amsterdam iyo dadkii xagga ka yimid Noordka inay mar soo kacaan ma jeclaan lahaa oo ay halkan ku soo dhawaadaan kuwa hadii la waayo waxa nala jooga laba hablood oo Soomaali weyn ka socda jiijo iyo inan kale oo soo ku soo dhawaada inkuna goobta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامتين دمانتين دتك جوشة قرح ذا بدن نور دقي ريت البروق آدي آد بدو ما سنتين وأنا كم هالسنتين أنا آدي آد بان أقول فرح سنة هاي إن أنك سوق قلنا حفلة ريتش بوتي ما دام ريتش بوتي تدور على عنا هاي dad aan nahay haddana jiiraan ah haddana dad markii dhibaatadana haysatay haddana reer Soomaaliya fiisa la'aan na dhaheen soo gala wadankiina markii dhibaatada nagu dhacdayna na soo garab istaageen marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa marka midda koowaad waxaan rabay inaan idin sheego hooyooyinka reer Djibouti hore waa u arki jirtay marka dhibaato idinkeedima soo taaban laakiin anaga daan reer Soomaaliya nahay dhibaato yar baan taabatay cudur yar baan nagu dhacay Ilaahay subxaana qaadirna hadda wuu naga kala saaray marka idinkan waxaan idinkaga duceynaynaa in cudurka idin gaarin aniga hadda ka hor waan taageeray urur oo reer Djibouti oo maamooyin reer Djibouti ah markii dambana waan ka soo tagnay waxaan uga soo tagnay waxay tahay waxaan u arkay ani ahaan Khadija anu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho laakiin waxaan ku soo barbaaray Yurub marka tan waxay ka muuqataa in ay laga dhax arkayo kale reer Djibouti oo dhan marka sida awgeed ani ahaan Khadija waxaan u koosgareystay in aan idinka idin doorto oo idinku taageero markii ugu horeysay midnimo waxay ku soo aaday waa midnimo horta way nasiib leedahay because anaga ururo badan baan sameeyay Soomaalida marka haddaan reer Soomaaliya 20 sano jira ururka dalada Soomaaliya Efsan baa la dhahaa maalin dhaweey 30 sano gaaray waxa jira ururo kale oo yar waxay isku aadiyeen maalinta gobonimo doonka marka midnimo maadaama ereyga uu yahay waxaan noqonaynaa hal haddana waxa markii isku horeysay wax qabataan waxay ahayd maalinta calanka marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaana qaadir ah ha idin waafajiyo wanaaga ha idin waafajiyo isku duubna gacmo wada jir wax ku qabtaan Ilaahay qaadir ah wixii tafraaruq wado Ilaahay subxaana qaadir iimaanka Allah galiyo Allah soo hadeeyo idinkana Ilaahay idima kala qaado in waan ku mahadsantiin waxa wax u qabanaysiina waxay tahay dadkiini oo dhibaateysnaa oo ku jira anaga xataa Soomaalida way qabaan ururo midnimo la dhahayo iyo ururo la dhahayo example oo kala Muqdisho oo kala daa tagtid waxaad ka helaysaa dad badan gobolka Banaadir aldaas Muqdisho waxa ka horeysa Banaadir waxa lagu hadlaa af Talyaani af Carabi af Soomaali af Amxaar Etoobiyaanka oo dadkii hore deganaa in af Soomaali haddana af Soomaaliga waxa loogu sii kala hadlaa 5 luqadood 5 lahjadood marka dialectic oo kala badan markaas qaybaha qaar kood ma fahmayaan waxa qabnaa falkan dansi oo dhaqamo badan ah marka ani caaw waxa idinka arkay dad badan oo ka yimiday kala luqada ah marka idaacadiina dhageysano kala ku farxnaa waxaan dhahnaa waaw
because ilmo waxaad jirta haddii faransiiska ku koreen oo kale ama iskuulna dhigteen ama haaf ay yihiin fahmayaan af caanfarkii lagu hadlayaa af carabiga lagu hadlayaa af soomaaliga lagu hadlayaa marka meel fiican ba midnimada waa eraygaas oo kale marka annagu waxaan ugu mahad celinaynaa inta askarta reer Jabuuti ee jooga Soomaaliya intii ka dhimatay Allah u naxariisto samir iimaan Allah naga wada siiyo in aruurtaan agoonta ah aad u kacdeen oo wax soo siineysaan Ilaahay subxaanahu qaadir ayagana agoonnimo way ma fiicno laakiin waa ogaada in annagana dadka inooga damiir badan yihiin ninka Soomaaliya joogo beledweyne joogo markuu dhinto oo reer Soomaaliya ninka reer Jabuuti ah waxaan ka xanuunsanaa ninka reer Jabuuti حتى waxaan dhahnay meedka qaada madika yeelayno ku aas halkan laakiin sidii anaga aan u dhiganayna jinaasadii iyo wixii oo dhan way dad isku afbaanahay ani hooyada adeerkeed wuxuu ku duwan yahay Jabuuti wuxuuna ka qayb galay midnimadii xornimada markii reer Jabuuti la qaadanay marka midnimo ha israacdo amiin hana noolaato kaliya waxa ka fiican in israacdo marka Soomaaliya waxa dhahnaa ha noolaato waa qalad baa dhahnaa ha israacaan israacashada baabisan marka israaca ilaahayna tafraaruqa idinka saaro aad baa ugu mahadsantahay ها السلام عليكم مر لبعض مر saddexaad ba halkan waxaan hadda goobta ugu yeerayaa Fihima Ilays oo iyaduna rabtay inay waxooga guubaabo iyo tix iyo buraanbur iyada ay noo sheegi doonta waxay ugu magac dartay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان السلام يا هويوينك ودنك كسو قيب قلي كلن كان wanaagsan ee khayrka badan leh ee midnimo aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaadaan ilaahay welcome baan ilaahay bienvenue baan ilaahay arxibay baan ilaahay ya waxa weeyaan aawa waxaan meeshaan isugu nimidnay waa aasaaskii ururkii midnimo ayaan isugu nimidnay si aan maartaan udubada ugu dhisi lahayn ee u aasaasi lahayn taas oo ah macnaheedu inaga oo maartay uu ka jawaabayna inaan u miciino dadkeenii tabarta yaraa agoon ha ahaato iyo danyaraba ha ahaato inaga maanta bariiskeenu wiinoo buuxa dharigeenu wiinoo buuxa laakiin dadaan biyo cabin baa jira marka insha Allah ilaahay hayna garansiiyo ilaahayna nagama lumiyo haddii ilaahay yiraahdo marka halkan tix yar baan ka tirinayaa oo soo qoray tixta waxaan ugu magac daray magaca ururka midnimo ayaan magac daray waxa weeyaan aasaaskii gobonimadeena aabihii qaranka aaba guuleed Allah u naxariiste ya markii uu ku dhawaaqay iyo midnimo waa magacayga inkitino waa udubkayga waxda waa wada jirkeena unité waa ururkeena maamadii wadanka oo midho aanay ka maqnayn midnimo isku raaceen martidu waxa ay tahay maatidoo loo adeego mooradoo la mideeyo manfaco iyo moodba agoontoo loo miciino mawlaheenu siduu yidhi aakhiraa la mutaysan midigtaa laynaga siine midnimo ha la ogaado السلام عليكم انت سوق سوق saddexaad inaynu ay guda gallo waxaan ugu yeerayaa madasha nimco meedhane oo ka hadli doonta ururka midnimo sida uu dhismihiisu yahay iyo tafaasiil inaga siin doonta insha Allah ku soo dhawow nimco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا nimco meedhana horta waan salaamayaa reer Turbruk waan wada salaamayaa gabigiina oo dhanba aad baad mahadsantihiin soo dhaweynta aad soo dhaweyseen waxaan ka hadlaynaa hablihii walaalahay way wada sheegeen ururkii midnimo waa laga wada hadlay waxa kaliya toon anaga ka hadlayaa storygiisa goortuu bilaamay iyo habka aan u bilownayba
sidaad u ogtihiinba ururka midnimo waxaan ka shaqaynaynay muddo badan 2012 ayaan asaaskiisa bilownay oon rabnay inaan asaasno qayb kale meelo kala duwan oo Holland ka mid ah ayaan u nimidnahay sida Tilburg mar hore waan nimidnahay in badan baan raadinaynay waxaan gabagabadii ku soo gabagabeynay ururka 2014 waana ku guulaysanay alxamdulillah waana waxaan rabnay hooyooyinka inaan taageersano qurba joogta reer Djibouti ujeedadaan u asaasnay waxayaan inaan dad horta koo waa sheegteen waa si hablaheeni walaalaheena u sheegeen waa inaan dadkeena masaakiinteena dadkeena dan yartaa inaan gargaarno laakiin kaligeed taa kaliya maaha waxa weeyaan inaan is ogaano oo maadaama uu qurba joogtii nahay waxaan rabnaa inaan dadkeena hooyooyinka qurba joogta reer Djibouti inaan mid noqono oo war iska hayno oo dhalinyarteena iyo caruurteena aan isbarno oo dhaqankooda iyo diintoodana aan barno on la xiriirno waliba dadka dibadaha jooga sida maaragtay Yurub dadka Yurubtana aan la xiriirno oo noqono urur weyn oo hooyooyinka kana qayb qaadano adduunyada si horey martay hooyooyinka ay u shaqeeyaan dhaqankoodana ka hadlaan dhibaatooyinka hooyinka ku yimaadaan ay ka hadlaan ururkeenu waa urur ballaaran urur yar oo amba kaliya timaa taageersi waa urur weyn oo aad dalka Djibouti-na laga yaqaano oo adduunyahana laga yaqaano rabnaa sidaasaan maanta niigu yeeray waxaan salaamayaa madaxweynaheeni Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa koobaad waxaan salaamayaa oo kale reer Djibouti-geena dadka dalkeeni oo dhan gabi wani waa salaamaya Nimca Cabdalla ka mid tahay Muna Xuseen Gaydan Faadima Axmed iyo dhammaan dumarka gadaashayda jooga waa reer Maastricht weeyaan iyo kula waxay rabaan inay oraah ka dhiibtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waan niga salaamaya Muna Xuseen Gaydan oo wadanka Djibouti ku dhalatay oo joogta Holland marka waxay la socday soo sheeg in abtiday yadna dhinaca abtiday yadna iga xigta Faaduma Ahmed Fadxiya reer Maastricht oo meel dheer aan ka imanay marka sidee noo soo dhaweeyeen reer Tilburg aad baad u mahadsantihiin si sharaf leh weeyaan maadaama maanta midnimada ma aragtay wadankeeni aanu halgamano oo nu joogno ilaahay waxaan ku bareynaa inuu ilaahayna la qabto insha Allah oo intii ma aragtay iswakiishatay ee iskaashatay ee wax walba isla qabatay ilaahay naga yeelo insha Allah marka waxaan rabnaa insha Allah sidee hawsha inoogu socoto ilaahay kuwii ma aragtay meel walba jooga ee laga aqoonsaday ilaahay ha naga dhigo marka halkan waxaan ku soo koobayaa salaanteeda madaxweynahayga Ismaaciil Cumar Geele islaantiisa Khadra Xayd iyo hooyada yaabahay oo aad si fiican u soo dhukanayo iyo walaalahay ummadda Nabi Maxamed iyo reer Djibouti meel kasta ay joogaan salaantii muslimnimada ayaan ugu soo salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim gabdhahan meesha iskugu yimid ee sharafta leh waxaan idin salaamayaa gebigiinaba meel kasta ood ka timaadeen waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كل ماشان أنا ومان إيماني أنا كقط بديو أو كجدي قط بد عصايا شيء أنتي تلبرخ وماركتي سلامتي تلبرخ وندريا عدو إلى هيرا والسلامتي مركه هراء أد بني صور دوينة يا قبلها شرف تلا كي يمد قبل هذا مجال وطن كنذرلاند أد بني صور دوينة يا وتكون ما ستين سداد باقي وقصو جوابتين markii labaad waxaan salaamayaa gabdhaha reer Tilburg ee sida sharafta leh martidan u soo dhaweeyay ee la'aantood qarsoonteen xalfadan maanta halkan ka dhacaysa iyana aad iyo aad ugu mahadnaqlin waan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo halkan ka salaamayaa dalkeenii hooyo jamhuuriyadda Djibouti إسماعيل عمر جيل مدحوينهني
iyo marwadii madaxweynaha khadre xayd marka waxaan leeyahay waan soo salaamaya marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالك كهلا يسي اسمها جامع حسن وحنا كهلا أفكار دمان دتك رير جبوتي وحنا كهلا أفكار دمان دمرك رير هولن وحنا كهلا أفكار من ماذا رير جبوتي وحنا يا من ماذا حنولاته وحنا سلام يا دمان دتك رير جبوتي ملك سأي شوغان وحنا لا يا هاي من نمو قرن يقبل اسم قاري كران قرن يقبل اسم قاري كران أبوان تما عدي وحيري دوكسي ملا قبيالدي واحد دم يسموه يعني وحليدي وحليدي أنا نكا إيش علي محمد نكى ده يا ما أنت وذرك يا حمر سنة هاي وقبيل وحبابية جبوت هو وضير قبيل يدك قال منا مقالي كرتوه وحلينا هاي أنت نجم مكان الراه لنا وحلينا هاي ما أنت قبيلكم مكان ويلكم بالنمو ويلكم waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynahayagii Ismaaciil Umar Geele iyo marwadiisii Khadre Maxamuud Xayd iyo dhammaan baarlamaanka Jabuuti iyo waxaan leeyahay dadka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan dhammaan ku ka salaamayaa hooyooyinka qurba joog ee reer Holland dhammaantiin waad salaamantiin haddaad tihiin reer Holland iyo wadanka oo dhan anigoo ku hadlaya afka hooyooyinkii magaalada Tilburg oo maanta halkan sharaf ku soo dhaweynayno ururka midnimo horta midnimo barnaamij badan baan ku soo dhignay haddaan nahay kooxda 4 Maars waxaanu oran jirnay midnimo iyo sinaan iyo nabadgelyo waa saddex shay oo meel soo wada joogsada bacdana maanta aad la baxdeen magac sharaf leh midnimo goor walba waan taageersanahay haddaan nahay fanaaniintii kooxda 4 Maars ee Jabuuti iyo qurba joogtada ilaahayna waxaan idin rajaynayaa ururkii midooba ee midnimo maanta aad la baxdeen waan inagu hambalyeynaa waan inagu garab joognaa annaguna xageygii fanaaniinta waan inagu garab galanaa waanad mahadsantihiin waxa kale halkan ka soo salaamaya Ismaaciil Umar Geele oo awal ahaa aabahayagii kooxda 4 Maars maantana intaan Jabuuti ka soo maqnaa madaxweyne noqday kol walba anu Ismaaciil Umar Geele waan soo hambalyeynayaa ha noolaada baan leeyahay cimrigiina ha jiro iyo Khadre Xayd oo hooyadeeda kooxda 4 Maars ahayd maantana ah hooyadii Jabuuti meel walban jooga waan ka soo hambalyeynaa waana niheesna haddaan duqan noqonana salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمانتي وان والسلام يارتا مدوينها halkan isku yimid sharafta loo dhan waa ina mahadsan reer Tilburg intayna soo dhaweeyeen ay marti sharafka caynkan u qurux badan lagu soo dhaweeyeen waad mahadsantiin reer Tilburg waxaan salaamayaa madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geele iyo marwada koobaad Khadre Maxamuud Xayd waxaan salaamayaa ciidamada Jabuuti oo dhan waxaan salaamayaa meel kasto ay joogaan ummadda reer Jabuuti hadday halkan joogaan iyo hadday meel kasto joogaan iyo hadday dalkii joogaanba waan salaamayaa assalaamu calaykum dhammaantiin waad salaamantiin midnimo ururka midnimo waan ku faraxsanahay waayo magaca midnimo waa magac qaaliya waayo Jabuuti dadka reer Jabuuti waa dad waxay magacoogu waa dad reer Jabuuti waa midnimo waxa la inagu yaqaanay midnimo mid baynu hayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum mar labaad iyo mar saddexaadba hadda waxaa madasha ku soo dhaweynayaa reer Amersfoort Utrecht ayaan ku soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan nii wala salaamayaa hooyooyinka madasha iskugu yimiday aad baan u soo dhaweynaynaa annagu haddii aan nahay hooyooyinkii gobolka Utrecht ururka midnimo aad baan u soo dhaweynaynaa
isagoo ururka midnimo uu weli sanad gaadhin haddana xaggu marayo waa laga yaaban yahay aadna waan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa xaggaa uu joogo inuu horey uga sii socdo kii lagu antifaacsado ee dadkiisa iyo dalkiisaba wax u qabta inuu alla ka dhigo inta haddaan hadalkayga ku soo koobo waxaan xaggan ka salaamayaa madaxweynaha dalkeena mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd golaha xukuumadda oo dhan waxaan ka salaamayaa golaha shacabka baarlamaanka ciidanka qalabka sida meel walbay joogaan gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan beledweyne ciidanka jandarmeriga nabad ilaalinta booliska ummadda reer Jabuuti oo dhan meel walbay ku sugan yihiin aad baan u wala salaamayaa xagga waxaan rabaa inaan in yaro tacsiya aan ka gudbiyo halgamaageennii weynaa ee inaga wala dhintay reer Jabuuti oo dhan buu ka dhintay wuxuu ahaa in halgamaa qaali ah mudane aadan rooble cawaale wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Jabuuti waxaan leenahay ilaahay gabigeennaba samir iyo iimaan haynaga wala siiyo gaar ahaan qoyskiisii islaantiisii Caasho Cumar iyo awlaadiisii ayaan leeyahay samir iyo iimaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan ku soo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا horta aad baan caawo u faraxsanahay si qurux badan oo sharaf mudanna waan uga way baaqi baan uga soo jawaabnay hooyooyinkii midnimo isku duuban oo wadanka koona kastay ka joogaan bay iskaga yimiday horta mahad waxaan u celinayaa hooyooyinka Tilburg ee madasha noo dhigay ee sida quruxda badan la nagu soo dhaweeyay haddaan intaa dhaafo in yaroo boogaadina ayaan sheegayaa waxa weeyaan horta wax lagu faano dad meel iskugu yimiday oo qaran iskugu yimiday oo qabiil iskugu yiman oo kala sarreyn iskugu yiman waa wax aad u qurux badan waana wax lagu faani karo waana wax la hiigsan karo waana wax rajo maanta tala joogo tuka dheer ina la gaadhayo aad ay ugu muuqato waxaan leeyahay xalka aan maanta taagsiisanahay inaynu daalin hawsheennahan ka sii wadno haddaan intaa dhaafo in yaroo gundhiga haddaan ka hadlo 7 sano ka hor yaan bilaabay hawl inaan wax qabto waxaa jiray hooyooyin la mid ahaa oo ku jira hooyooyinka caawa ka tirsan oo ku jiray iyakuna inay meel dad boogaadiyaan ama dadkoogii xasuustaan oo iyakuna saan dhinac uga socdo iyakuna dhinac uga socday maanta si aan isku imanay isku mabda aan noqonay asaaskii u horeeyay ee sameeyay 7 sano ka hor buu ahaa 5 dumara oon jaarnahay baan isku keenay waana taabageliyay 2013 waxaan gaarsiiyay inaan ka dhigo urur istiqtin leh oo magac leh oon magac Jabuuti waliba ka midaysan oo midnimada Jabuutiya aanu saaray istaatiile oonu saaray waliba magac ku asaasan midnimada Jabuuti oo waliba xalkii gobonnimadu ay ku timiday aan ku asaasay asaaskii kadib waxaan sameeyay bishii November 2013 fariisi weyn oo kulana oo dadka ajaanibka istiqtinada leh aan iskugu keenay fariisigii waxa maxay ahaydeen ka soo baxay rajo aad u qurux badan oo horta aan ku mahad celinayo kaameramankeena ama inanka suxuufigeena ee maanta aan ku hambalyeynay maanta in hor jooga Fawzi oo ka qayb weyn ka qaatay oo barnaamijka aan sameynay na duubay taabageliyay oo media galiyay oo mediaagi kadibna ay ogaadeen safaaraddeena Belgiga joogta oo markaa uu ka ahaa paranterim uu ku hayay xagga ambassadornimada Maxamed Burhaan oo aad u salaamayo uu ku hayay uu ogaaday uu markuu mediaagi daawaday uu ka soo dhex saaray inay hooyooyin jira wax qabanaya uu nagu boogaadiyay inuu wax qabadkaasi inuu noo yimaado oo gogol u dhigno
gogoshii kadib waxa ka soo baxay inuu maad aragtay gogoshii markuu noo yimiday uu ka qaatay tusaale aad u qurux badan uu nagu casuumadeeyo abriil madaxweynaha imaadkiisa uu nagu casuumadeeyey oo haddii shakhsi ahaan aan iska hadlana aan ahay haweenadii 20 midhid madaxweynuhu xalku ka siiyey uu uga biiriyey uu 20 kale ugu daray ee afkeega tooskaa kula hadashay madaxweynaha oo rajadiisu ay la'ayd qurbo joog ama hooyooyin dalkooga u halgamaya waxbaan soo tarayaa leh aanan arag buu yidhi uu jaaniska fiican siiyey excellence mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu fursadda aad u quruxda badan leh aan shakhsi ahaantayda kala hadlay uuna nagu dhiirigeliyey inuu waxqabadka xalka laga sii wado maantana waxaan ku faraxsanahay inay midnimadii aan doonayay ammaan u soo halgamayay aan helay maanta dadkii u taagsiisnaa ama u bislaa oo maanta iskugu yimiday qabiil aan iskugu iman oo iskugu yimiday wala dhalasho iyo qalankii Jabuuti iyo calankii Jabuuti koo huwan waxaan leeyahay midnimo way dhaqaaqday ilaahayna ha taabageliyo hawsha aanu dhaqaaqdayna kuwii aakhiriya adduunba ku liibaana ilaahay naga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh